yeeshu markii ay aragtay boorsada lacagtu ka buuxdo waxay go'aansatay inay raacdo dadkaas aan la aqoon ee u yimid. Tani waa qaybta labaad ee filimkan. Soo daawo qaybta koowaad. Aan ku laabano filimkeena. Inta aysan bixin waxay u yeertay saaxiibteedii Yemini waxayna u dhiibtay boorsadii lacagta ahayd iyadoo ku tiri lacagtan walashay ku daawee, aniguna maalmo ayaan sii maqnaanayaa. Intaas kadib yeeshu waxay qadatay alabteedii waxayna fuushay gaari nooca raaxada ah oo uu dhex fadhiyey nin sugayay. Ninkii ayaa u dhiibay kiniin ay liqdo, balse markii ay liqdayba miirka ayaa ka tegay wayna suuxday. Markii ay soo toostay waxay isku aragtay qol aad u qurux badan, waxaana u soo gashay haweenay lagu magacaabo Maadhu ayaa u sharaxday qaabka ay halkan u joogi doonto. Xaqiiqdii yeeshu waxay heshiis kula gashay qoys taajir ah inay ilmo u dhasho si ay lacagtaas u hesho. Xaruntaas waxaa ku sugnaa gabdho badan oo iyaguna sida yeeshu oo kale ilmo ugu qaaday dadka malqabeenka ah. Maalmo gudahood yeeshu waxay la qabsatay gabdhahaas waxayna bilowday inay farxad ka raadiso noloshaas cusub iyadoo isku dayaysa inay la qabsato jawigan. Xilli ay yeeshu keligeed qolka ku jirtay waxaa si degdeg ah ugu timid haweenayda xarunta maamusha waxayna u kaxaysay qolka baritaanka ee Dirgotem. Intuu baaritaanku socday yeeshu waxay dhakhtarka ku eegaysay indho dabacsan, taas oo sababtay in si tartiib ah uu xiriir jacayl uga dhex dhasho labadooda. Maalin kale iyagoo miiska cuntada wada fadhiya, gabdhaha uurka leh ayaa isbarasho sameeyey iyagoo ka sheekaysanaya heerka uurkooda iyo bilaha u hadhsan. Maamuladii xarunta ayaa soo jeedisay in yeeshu lagu daro kooxdan, taas oo gabdhaha oo dhan si farxad leh u soo dhoweeyeen. Balse gabadha kooxda horkacaysay ee Teju ayaa shuruud adag ku xirtay. Waxay tiri, haddii aad rabto inaad nagu soo biirto waa inaad sigaar keenta qaybta mamnuuca ah ee Sony 2. Yeeshu iyadoon haysan dooq kale ayaa si dhuumaalaysi ah ku aaday goobtii laga mamnuucay, balse nasiib xumo waxaa arkay mid ka mida ilaalada. Ninkan oo ilaalada ah ayaa damac xun ku jiray, ayaa isku dayay inuu yeeshu taabto isagoo ka faa'iidaysanaya fursadan, balse isla wakhtigaas waxaa soo gaadhay Dirgotem si uu u badbaadiyo. Maxaa xigi doona? Fadlan sabskrayb dheh si aad u ogaato daawada. Su'aal aan ku weydiiyo, sheeg wax aan kaa tegayn intaad nooshahay. 1 waalidka, 2 magacaaga, 3 jacaylkaaga. Haddii aad taqaano jawaabta, dhanka kommentiga noogu soo qor si aan u ogaano fikirkaaga. Haddii aad halkan nala soo gaadhay, waad ku mahadsan tahay daawashadaada wacan iyo dhegaysigaaga. Fadlan walaysa amran sabskrayb iyo like nagu caawi. mahadsanid.